السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قالقة كسر وهذا مركلي علم التك أد ugu mahadsantiin daawashadiina saaxiibada qaaliga YouTube channel-ka hadda ku cusub tahay subscribe dhe videogana like dhe. saaxiibada qaaliga maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay isla PS-ta oo saaxiibada qaar ayaa waxay soo weydiiyeen haddii lagu soo siiyo account oo PS sidee password-ka uga bedelan karaa ama Gmail-ka uga bedelan karaa. marka waxa aan doonay inaan kuu sheego waxa weeyaan haddii qofku soo siiyo account data oo squad fiican iyo waxa ku jiraan waa doonaysid inaad ka bedeshid password-ka. ugu horreynta password-ka kama bedeli kartid haddii aadan haysanin account-ka oo Gmail-kiisa. Gmail-kan account-kan haddii aad haysatid iyo PS-ta password-ka labadaba password baa isku haysatid ama hal password oo aad maamuli kartid midkan iyo midka PS-kaba waad bedeli kartaa password-kiisa si fudud ayaad u bedeli kartaa. laakiin haddii lagu soo siiyo squad account oo PS-ka account-kiisa kaliya ayaa lagu soo siiyay laakiin ma haysatid Gmail-ka, markaas waxaad samaynaysaa linkigan ayaa raacaysaa oo kale oo waxaad samaynaysaa Gmail-ka ayaa ka bedelaysaa marka koobaad. Gmail-ka markaa bedelaysid waxba lagagama baahna haddiiba aad mar haysatid password-ka iyo account-ka ama Gmail-ka oo lagu galayo datada. mar haddii aad data soo kici kartid uma baahnid wax kale, waxaad raaci kartaa linkigan oo kale oo ah sida Gmail-ka looga bedelo. markaan waxaad samaysanaysaa update Gmail ayaad dhahaysaa. Gmail-kan islaameed waa iska bixinaysaa, Gmail-kaaga ayaad gashanaysaa. marka Gmail-kaaga gashatid oo adaa yeelata markaas password-kana waa ka bedeli kartaa oo waxaad dhihi doontaa forget password. ayadana video kale ayaan ka sameeyay oo linkigeeda waa kana isna waxaad ku samayn kartaa asna waad raaci kartaa oo xaggaas ayaad password-ka uga bedeli kartaa isna. waad ku mahadsantihiin shaawashadiina saaxiibada qaaliga ah. waa isoo weydiin kartiin su'aal kasta ana waxaan isku dayi doonaa inaan idinkaga jawaabo su'aal kasta oo ku saabsan PS-ta sida video loo edit gareeyo ama application-ka ugu fiican ee loo edit gareeyo application-ada ugu fiican ama software-ada ugu fiican ee screen-ka lagu duubo ama screen recording-ka loo yaqaano. wax walba oo ku saabsan waa isoo weydiin kartiin ana waxaan isku dayi doonaa in aan idinkaga jawaabo sida ugu fudud ee aan u aqaano. waad mahadsantihiin